Soomaalidii midowdo saxarkii baxyo samaatay Soomaalidii midowdo saxarkii baxyo samaatay nin lagu seexdo waa seexan haseexan soo jeedo si weyn u feejigno qaar kamid ah haweenka gobolka Sool ay kamid tahay saxafi Munamaandeeq Axmed ayaa munaasabada kooda luuliyo ku qabtay gobolka Sool iyagoo hambalyo u diray dhammaan ummadda Soomaaliyeed. bismillaah magacaygu waxa weeyaan Nimco Cabdiraxmaan Axmed oo ku sugan gobolka Sool waxaan u hambaleynayaa ummadda Soomaaliyeed dhammaantii waxaan leeyahay hambalyo sanad guuro wacan jir oo jooga sanad ka sii badan intaas. magacaygu waa Munamaandeeq Axmed ee ku sugan gobolka Sool waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa Soomaali weyn meel walba ay joogaan. maanta waa kooda luuliyo waa maalin qaran waa maalin weyn waa maalin qof kasta oo Soomaaliyeed u leh sumad gaar ah waa maalintii ay xorriyadda qaadatay ee gobolada koonfureed isla markaana ay la midoobeen gobolada waqooyi waa maalin qof kasta oo Soomaaliya ku ah qaali iyad la helo ama madax banaani la helo waxa loo soo maray halgan dheer waxa lagu raadinayay xornimada muddo ummadda Soomaaliyeed dad badan ayaa ku waayay naftoodii maalkoodii kuwa badan waxay u galeen xabsiyo in la helo madax banaani dadkii gobonimada doonayay waxa ka ahaa daraawish oo ah xarunta hadda aan ku sugannahay ma jeclin ama ma rabno inaan anagu Soomaali ugu horeyno kala go'eeda waxaan jecelahay mar walba inay Soomaali noqoto mid dalkan iyo dadkan waxa naga galay badan iyo maal badan waxaad moodaa dadka kale ee Soomaaliyeed inaan ka jecelahay hadaan nahay daraawish dalka laakiin marka si loo eego dadka reer ACC ama dadka daraawisheed aad baa loo dayacay haday noqoto dawladda iyo haday noqoto dadkoodaba waxa ka muuqda dayac fara badan si kasta ay ahaataba Soomaalidu waxay tiraahdaa hangaraar culug uma dhutiyo kala horun baa loo soconayaa dhamaantiin wax leeyahay hambalyo Soomaali weyn meel walba joogtaan wad maasantiin. dhanka kale xildhibaan Fihimo Yuusuf Quuja ayaa khadka telefoonka kaga qayb gashay munaasabada iyadoo u mahad celisay dhammaan haweenka soo qaban qaabiyay munaasabada. Aadaan salaamaya dhamaantiin waan idinku hambalyeeyaa toddobaadka xorriyadda lixdan guurida markii aynu xornimada qaadanay aynu midownay walaalaha Soomaaliyeed waa rajayn doonaa quwaddii iyo maqaamkeenu dunida ku lahayn inaan soo celino maanta way jadiilo Soomaaliyeed baa muuqata si gaar waxaan u hambalyeeyaa deegaankan ka soo jeedo Sool ahaan iyo idinka bixiina quruxda badan ee kartida leh iyaga oo la diidaya hanaka bilowga in lagu arko ku dhiiranayo marxalad walba u marayaan ogaa ilaa shalay ilaa habeen hore xaaladaha marayseen inay qabtaan oo muujiyaan dareenka Soomaalinimo aad baan idinku hambalyeynaya hal daalnina waa maasantahay xildhibaan waa maasantahay. bismillaah magacaygu waa Hodan Cabdirashiid Jaamac waxaan hambalyo u diray ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan dhamaanteed munaasabada kooda luuliya waxaan leeyahay hambalyo dhamaantiin. bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ka soo jeedaa gobolka Sool waxa la yiraahdaa Faadmo Cabdiqani waxaan hambalyaha kan u diray dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo kooda luuliyo hambalyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وماريا حاشي وكسوغن قبل كسول دمان وحن هالك همبليو قدريا سومالي ميلكستي جوكتو وحن ugu hambalyeynaya munaasabada kooda luuliyo si gaar waxaan ugu hambalyeynaya gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxaan leeyahay hambalyo insha Allah waxaan rajeynayaa sanadada dambe inaan Soomaaliyo mid ah meelkooda dabaaldegno hambalyo aan leeyahay dhamaantiin. الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan magacaygu waa Hiba Cabdilaahi Yuusuf ku sugan gobolka Sool xarunta magaalada Laascaanood waxaan u hambalyeeyaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan sanad guuradii ka soo wareegtay 60kii kooda luuliyo waxaan leeyahay hambalyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan sanad guuro wacan maan leeyahay insha Allah. Warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waa Mino Xamuud ku sugan gobolka Sool waxaan halkan hambalyo uga diray dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dal iyo dibadba maadaama aynu ku jirno toddobaadka xorriyadda waxaan si gaar ah ugu hambalyeeyaa gobolada koonfur oo ah kooda luuliyo markay Talyaaniga ka xoroobeen iyo midowgii Soomaali koonfur iyo waqooyi waxaan rajeynayaa sanadada dambe soo socota in Soomaali dib u midowdo insha Allah maadaama anagu ka soo jeedno dhashii daraawiishada xorriyadda Soomaaliyeed keentay insha Allah waxaan rajeynayaa inaan ka mid noqono dadka Soomaali dib isku keena.